madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wadanka Djibouti ku yimiday booqasho rasmi ah oo qaadanaysa ilaa 3 maalmood. Madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee caasimadda Djibouti ayaa waxaa qaybta VIP-da ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha wadanka Djibouti Abdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda Djibouti iyo wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Djibouti, safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed. Wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. waa markii labaad oo madaxweynaha Soomaaliland booqasho ku yimaado wadanka Djibouti. kulan dhex maray labada madaxweyne oo ku dhex maray qasriga madaxtooyada ee wadanka Djibouti la iskula soo qaaday sidii loo sii xoojin lahaa heshiisyadii dhinaca iskaashiga iyo cilaaqaadka ee ka dhaxeeyay labada dal Soomaaliland iyo Djibouti. waxa la leeyahay wixii loo baahan yahay ee iskaashiga dhinac kasta haday siyaasad tahay haday dhaqaale tahay haday nabadgelyo tahay in la leeyahay inta loo baahan yahay baanu ka wada hadlaynaa waanuna markaanu wada fadhiisanaano barnaamijka la dhigan doonaa oo aan isla dhigi doonaa wixii aan ka wada hadlay. waxay Soomaaliland iyada dalkeeda ka talisa, danaheeda iyada ka talisa, dhaqaalaheeda iyada ka talisa. cidii caalamka ay safkartaan ee xiriir yeeshaan nooc doonaba ha noqdo diyaar way tahay waan la saxaxnaysaa waan fulinaysaa. talabaad walaalka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaan aad u soo dhaweynayaa. waxaan soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne Muuse Biixi oo wafdi ballaaran oo uu isagu hogaaminayo Djibouti booqasho ku yimiday. booqashadaas horta waa booqasho walaaltinimo, booqasho iskaashiya iyo sidii aan hore u marin lahayn wixii milafi ama miiska noo yaala. heshiisyaal hore ayaa sii jiray. heshiisyaashaas ama iskaashi siyaasadeed, iskaashi dhaqaale, iskaashi xagga maaragtay kalluumaysiga, iskaashi maaragtay imika waxaad ogaatiin sanadkan waxa reer Djibouti ka xagaabahay Soomaaliland u xagaabahay kumaankin qof. waxaad arkaysaa xiriirkii walaaltinimo, xiriirkii ehelnimo aad buu u jiray uu xogeystay. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Djibouti.